muddooyinkii ugu dambeeyay deegaanada gobolka Awdal waxaa laga helay macdan taasi oo ay dadweynuhu ku qamaameen. haddaba waxaan maanta halkan kula kulmay Aqli Faarax oo ah aqoonyahan u ololeeya isbeddelka cimilada iyo arrimaha deegaanka. waxaan weydiiyay oo aan ka waraystay bal saameynta macdan qodistu ku yeelanayso deegaanka. muddooyinkan ugu dambeysay ama bilahan ugu dambeeyay gobolka Awdal waxa laga helay meelo fara badan, meelo kamida waxa laga helay macdan sida Soomaal iyo Dooxada Camuud. marka laga yimaado faa'iidada macdan qodistu faa'iidada laga helay macdan qodistu macdan qodistan lafteedani waxay saameyn ballaaran ay ku yeelan kartaa deegaanka oo qaybta negative-kana waa wax laga eegayaan. saameynta ay ku yeelan karto macdan qodistu deegaanka waxa kamid ah in goobtii camuudeed ee nadiifta ahayd inay isku bedeshay goob khashin badan u yaalo waqtigan xaadirka ah sida caagadaha, bacaha, waxyaabaha kale dadku ay wataan sidoo kale macdan qodistu saameyn ballaaran waxay ku yeelanaysaa beeraha u dhow deegaankan camuudeed. waan ogsoonahay in deegaankan camuudeed ay yihiin dhul beeraley ah. macdan qodistaasina waxay u keeni kartaa dadka beeraleyda halkaa ku xiran nabaad guur halis ah, kaas oo saameyn ballaaran ku yeelan karta wax soo saarkooga mustaqbalka dhow iyo mustaqbalka fogba. sidoo kale saameynta ay ku yeelan karto waxaa ka mid ah in xawayaankii duurjoogta ahayd ee dooxada camuud ku nasanayay in ay markii hoygoogii loogu yimid inay ka wada yaaceen, inay ka wada carareen oo halkaas duurjoog fara badan ay ka tegeen. sidoo kale in dhir fara badan oo xiro dhalad ahayd oo dhir oo halkaa ka baxday in ay dhirtaasina in ay baaba ballaaran ay waqtigan xaadirka ay ku keeni karaan dadku, sababtoo dad fara badan dadku way harsanayaan, qaar baa dhirtii jaraya, halkaas saameyn ballaaran bay taay ku keenayaan. sidoo kale saameynta ay ku keeni karaan macdan qodistu deegaanka waxaa ka mid ah in biyihii nadiifta ahayd ee camuud laga helayay ee xawayaanka duurjoogta iyo xawayaanka dabjoogta iyo bini'aadamku ay ka cabayeen in biyihii isku bedeli karaan biyo wasakhaysan. biyaha wasakhaysan ay saameyn ballaaran ku caafimaad iyo arrin kalaba ay saameyn ballaaran ay ku keeni karto. sidoo kale cayaan fara badan oo ku noolaa meelahan macdanta lagu qodayo ayaa dhibaato badan ay ka soo gaari kartaa. cayaano fara badan dhimasho badan ayay halkaasi ay u keeni karaan macdan qodistani. kolkaa waxaa qurux badan in waxaan aaminsanahay faa'iidada laga helayo dahabka waxa uu keeni karaa khasaaro ballaaran ayuu deegaanka ugu keeni karaa. Aqli waxaad sheegtay in macdan qodistaasi ay saameyn ba'an ku keenayso deegaanka. sidee baa loo xakameyn karaa baad is leedahay? waxaan qabaan aaminsanahay waxyaabo lagu xakameyn karo waxaa ka mid ah laba arrimood baan rabaa inaan dul istaago. mid waa xagga dawladda. dawladdu waa in had iyo jeer ay u soo dirtaa dad khabiira ah siba wasaaradda deegaanka iyo wasaaradda macdantu, dad khabiir ah oo dadna garanayaan deegaankii dadna macdantii garanayaan. waa inay usoo diraan meelaha macdanta lagu qodayo si dadka ay wacyigelin ballaaran ay u siiyaan, ayna xusuusiyaan dhibaatada ballaaran ee deegaanka uu ku keeni karo macdan qodistu. taasi waa tii dawladda weeyaan. talabaad qodobka labaadna waxaan farayaa bulshadu aqoon uma laha dahabka, aqoon uma laha, technology-na ma haystaan. labada arrimood waxay keenayaan in iyagu dhibaato ballaaran ka soo gaadhaan. kolkaa ciddii jecel inay macdan ay qodaa waxaan jeclaan lahaa inay tababar ka hor ay soo qaadato qaabka macdanta loo qodayo. sidoo kalena ayna raadsadaan teknolojiyadii amba qalabkii lagu baadhayay macdan qodista. waan aragnaa dumar badan iyo ciyaar fara badan baan tegey, technology-na ma haystaan. kolkaa taasina waxay keenaysaa inay dhibaato ballaaran ay ka soo gaadho deegaanka oo meel kasta oo meel kasta ay qodaan oo meel kasta oo aan macdani ku jirin ay faraha ula tagaan. kolkaa technology-gaas wuxuu ka saamaxayaa in uu tuso meeshii macdantu ay ku jirtay, inta size-ka macdanta halkaa laga helayo, qiimaha ay leedahay, inta mitir ee lagu gaadhayo. waxyaabaha dhan waxa u sheegaya waa technology-ga. Aqli maadaama aad adigu u ololeyso arrimaha deegaanka iyo isbeddelka cimilada ma tagtay weli
goobahaasi dadku ku qamaameen ee macdan qodistu ka jirto si aad dadka uga wacyigeliso dhibaatada deegaanka ay u geysan karaan xaqiiqatan su'aashaasi waa su'aal muhiim ah meesha maan tegin wacyigelin ballaaran kamaan soo jeedin haddii isaga maarsami weydo waxaan ku tala jiraa inaan goobahan tago oo aan saamaynta ay macdan qodistu deegaanka u leedahay ummadda wacyigelin ballaaran oo si voluntary tabarucaada inaan ummadda ugu sheego sababtoo ah de waa in loo hadlaa deegaanka waa in loo hadlaa deegaanka loona doodaa dhibaatooyinka ka soo gaadhaya deegaanka waa in waxa weeyaan dadka la xasuusiyaa oo sababtoo dhir badan baa halkaa laga helaya xawayaan duuljooga badan baa laga helaya cayaano fara badan baa ku nool dadka waa in la helaa dadkii u hadlayey siday ku badbaadi lahaayeenna ummadda u sheegi lahaa waa in la helaa insha allah qodobkaan waan ku tala jira hadduu allaha wadda ogolaado inaan wixii waajibaadkayga ka guto cabdisalaan cali ismaaciil cabdisalaan suldaan tv-ga caalamiga ee gobonnimo TV boorama